السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا دمانتين برو عالمك حلقة سي سغالات تاسو ان مانتا اوغا هادلي دونو ودنكا أستريا هدي aad muuqaalkan ka daawanaysid Facebook fadlan soo follow garee baro caalamka hadii aad dhanka iyo YouTube-ka nagala socotidna fadlan saar subscribe mahadsanid aan ku horeyno calanka wadanka Austria waa mid kamid ah calaamada ugu faca weyn qaaradda Yurub kalarada gaduudka iyo cadaanka waxa uu la wadaagaa dhowr wadan oo kale ku yaala bariga Yurub kuwaas oo calaamadoodu ku wada jiraan kalaradan gaduudka iyo cadaanka sida wadamada Czech Republic, Serbia, Hungary iyo wadanka Slovakia. Dhulka Austria waa wadan aan wax bad ah lagu arag waxayna daris la tahay 8 wadan oo kale. Wuxuu wadankan ku yaala bartamaha qaaradda Yurub. Waxa wadankan ku yaala buuraha lagu magacaabo Alps kuwaas oo ku yaala ama laga helo 4 meeloodkiiba 3 meelood dhulka wadankan qaasatan bartamaha iyo galbeedka dalka. Wuxuu wadanka Austria u kala baxaa 9 maamul goboleed. magaalo madaxda Austria-na waxa lagu magacaabaa Vienna taas oo dhacda bariga dalkaas. Sidaan hore u soo sheegnay Austria waa wadan buuraley ah ama buuruhu ku badan yihiin. Buurahan ayaa waxay yihiin sumada ama aqoonsiga gaarka ah ee dalkan Austria. Taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba buurahan ayaa sidoo kale waxay ka qayb qaataan bilicda wadankan iyadoo barafkooda loo adeegsado ciyaaraha kala duwan ee lagu dhex ciyaaro barafka. Ka sokow astaamahan buuruhu u leeyihiin Austria waxay sidoo kale caqabad ku yihiin deegaamaynta dadka iyo beerashada dalagyada. Inkastoo 40% uu dalkani leeyahay kaymo, haddana kaliya 20% ayaa ah dhul wax lagu beeran karo ama wax soo saar dalag leh. Maadaama uu wadankani bad lahayn webiga Danube ee mara waqooyiga dalkaasi ayaa Austria ka caawiyay inay badeecadeeda soo dhoofiso ama sii dhoofiso. Dhulka siman ayaa wuxuu dhul-daaqsimeed u yahay lo'da wadanka Austria. Austria kaliya kuma tiirsana beerashada balse sidoo kale waxay soo saartaa matoorada gawaarida iyo daawooyinka caafimaadka. Dadka Austria waxaa ku nool dad dhan 10 milyan kuwaas oo 90% asal ahaan ka soo jeeda dalkan. 10% kale ee hadhayna waa dad ka kala yimaada wadamo kale sida Jarmalka, Hungary iyo Serbia. Luqadda looga hadlo wadanka ayaa ah luqadda af Jarmalka balse dadka Austriyaanka ama dadka ka soo jeeda wadanka Austria ma jecla in ayaga loogu yeero Jarmal. Dadka caanka ah ee ka soo jeeda Austria waxaa ka mid ah Christoph Waltz iyo muruqyahanka ama jilaaga caanka ah ee Arnold Schwarzenegger. Siyaasadda Austria waa wadan taariikh ku leh bilowyadii ama asaasyadii dagaaladii koowaad ama labaad ee adduunka. Dagaalkii koowaad ee adduunka wuxuu bilowday markii la dilay dhaxal sugihii boqortooyadii Austria-Hungary ee magaciisa la oran jiray Franz Ferdinand iyo xaaskiisii Sofia. Dagaalkii labaad ee adduunkana waxaa bilaabay Hitler oo ahaa nin ku dhashay wadanka Austria. Austria waxay haatan ka mid tahay midowga Yurub balse waa wadan siyaasadiisu dhexdhexaad tahay. Ku xirnow baro caalamka waxay inoogu xigi doonaa oo aan ka hadli doonaa wadanka Azerbaijan insha Allah.